marka dumarkii si xun loola dhaqmo karaamadii ilaahay uu siiyeyna laga qaaday la ihaanaysto markaa weeye markuu nebigu ka digaya sala allahu calayhi wasalam waa xadiidkii bukhaari iyo muslim xadiid kaloo muslim ku sugan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina addunyaa xulwatun khadira adduunyadaa ku nooshihiin xagga aragga waa cagaar wixiina marka daadaawanaysaan xagga marka la cunayana waa macaan fataqu dunyaa wataqu nisaa adduunyadana iska ilaaliya fitnadeeda dumarkana ha ku fitnoobina oo si aan sharci ahayn ula xidhiidhina nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xadiid kaloo saxiix xasana ku yidhi ina almar'ata cawra faidaa kharajat istashrafaha ashaytaan ruuxa dumarka ahi waa cawro markay baxdo shaydaanka u baxa ama raggu ku soo leexinayaa ama iyadu leexinayaa dee qof ilaahay ilaaliyey mooyaane marka ololaha shaydaanku uu ku wado ragga iyo dumarka inuu dumarka u sii badan yahay buu nebigu xusayay calayhi salaatu wasalaam dumarka waxaa ka mid ahayd oo ahayd aqoon-yahankii nebigu gacantiisa uu ku soo saaray xaaskiisa caaisha asidiiqa bintu sidiiq waxay aragtay wakhtiyadii dambe ee uu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam xaaladdu siday isu beddeshay iyo dadka tarbiyadoodu siday berigii hore ahaan jirtay in wax iska beddeleen waxay lahayd low adraka rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ma axdatha annisaa lamanacahuna almasaajid hadduu nebigu soo gaadhi lahaa maanta dumarku waxay soo biiriyeen ama ay soo kordhiyeen isbeddela isqurxina cadara iltisaamkii diiniga aha ku dhaqankii diintoon sidii hore ahayn hadduu soo gaadhi lahaa masaajidkaa wuu u diidi lahaa bay leedahay hadday idhaahdaan waa tegayna ha tegina buu odhan lahaa nebigu sidii loogu diiday dumarkii reer banu israa'iil arrintaasi waa mid dumarku arrinta labaada looga hadlayaa waxa weeyaa waa juz'un min xayaati الrijaal wa sirun min asraari icmaari hada alkown waa ciddaa hareeraha ka taagan ragga ee la hinjinaysa howlaha diin iyo dunyaba waa sirta kownkan lagu camirayo ee markaa lagu faafayo marka hadday ku hagaagaanna waad hagaagi hadday kaa xumaadaanna ama ay hallaabaanna waa la hallaabi walaqad arsalnaa rusulan min qablika wajacalnaa lahum aswaajan wadurriya markay nebi maxamed gaaladu eedeeyena yidhaahdeen oo ubadiyo oribaa buu leeyahay sidee loo addeeciyo rasuul u noqon arrintaasi soo jireen bay hayd baa ilahay ubadiyo oriba waan siin jiray ambiyadii hore kaalin weynna way ku lahaayeen diinta hirgelinteeda nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramayey waxau idhi waatasawaju nisaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii anigu dumarka waan guursadaa qofka guurka naca inuu dumarka guursado sunnahaygii ma hayo dumarku hadday inoo hagaagaan aynu ku dadaallo dadka jiilka iyo qarniga inoo soo baxaya qiimuu yeelanaya xigmad baa waxay leedahay markaynu taa ka nimaadno khataraha dumarka ku xeeran waxaa ka mida waxyaabo daakhiliya iyo waxyaabo khaarijiya daakhiliga waxaynu uga jeednaa wax innaga dhexdeenna mushkilad dhexdeenna ka timaada oo dhib iyo culays ku haysa dumarka waxaa ka mid a caadooyinka caadaduna marka had iyo jeer sharciga ay khilaafsan tahay in la raaco ma aha shayga muqadaskaa ee la raacayaa waa islaamka iyo diinta islaamka iyo waxyiga ilaahay baa wuxuu uhi waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah qaaluu bal nattabicu maa alfayna calayhi aabaa'ana awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shayan walaa yahtaaduun marka dadka lagu dhaha diinta raaca ilaahay waxay leeyihin maya waxaanu raacaynaa dhaqankii aabbayaashay oo sidee u raacayaan aabbayaashood buu ilahay yidhi haddaanay caqlina lahayn cilmina lahayn caqliguna ma sheegayo xumaanta in lagu raaco dee cilmiguna maba soo deliishanayaanoo caadada uma hayaan marka caadada waxaa la raacaa markay sharciga waafaqsan tahay hadday sharciga khilaafto waa la weydaaranayaa aabbayaasheen iyo awowayaasheenba dhaqan ha u ahaato waa munkar waa dembi qawaacidka shareecaddeenna waxaa ka mida qaacido odhanaysa alcaadatu muxakama idaa lam tukhaalif isharca caadooyinka waa la raacaa haddaanay sharciga khilaafayn waxaa ka mida maal meherkooda oo aan la siinin oo loo diido ama la warwareejiyo ama laga khiyaamo waxaa ka mida dhaxalkooda oo loo diido oo la idhaha waxani waa wax fara badan loo quuri kari maayo waxaa ka mida marka ninku ka dhinto qasab lagu dumaalo waxaa ka mida waalidka oo yidhaahda waxaan kuugu duceeyey kaa midaan kufba ahayn oo faasiqa lacagu ku arkayo daraaddeed kaasaan kuu guuriyey
haddii kale waad habaarantay waa qasab sax maaha waxaa ka mida mid ay jeclaatay iyadoo kufu ah sharci ahaan marka la eego ku habboon oo qabyaalad loogu diido ama ismagayna ama balaayo kale ama lacag ma haysto qofkiina waa qof diin iyo akhlaaq loo inantii wadi kara iyo gudniinka fircawniga oo aynu garanayno weli jira badanna miyiga siya marka waxyaabahaas oo dhami waa caadooyin la odhan karo jaahiliyadii bay ka joogaan inaynu isu taagno inaynu suulinana ay waajib tahay oo qofka dulmigana laga daayo xaqiisana la siiyo marka wixii dadka muslimiinta dhibaato ay ku sameeyeen dumarka ayay uga dhigayaan dadka inuu islaamku ku sameeyay diinta islaamku waa muqaddas oo dambi ma leeyado laakiin dadkan ku aftirsanayo dambigu ka iman karaa